شيخ أدي الممثل هاي شيخ waxaan weydiin lahaa su'aal ku saabsan xagga garsoorka sheekh siin ognahay iska dhaaf aan isku maqlayna aad sheekhana waxaan ku weydiin lahaa kulley si naqaano dalkeena madhabka in ku dhaqano waa madhab Shaafici badanaana waxa jira xagga garsoorka oo kale de kulli wad ku dhex jirteen mudooyin badan muxuu yahay mararka qaar waxa dhacaysan masaa'isha qaar ay adkaato oo madhabkiinu fardaamiyo markaas oo kale madaahib kala u leexataan sidoo kale bal xagga kulli kitaabkii manhajka marka masaa'ishiisa aad aqriyaysid waaqiciina aan eegno wax badan baa isqaban waayay bal taasna wixii tala aad naga siin lahayd laba dacwada miiga runtii de san anigu aaminsanahay wax badan ba kalama socdo geela iyo ariga iyo lo'da iyo dhulkaas markaan tagana de kulli qof weyn inaan raaco oo ii sheeg mooyaan wax badanna de isagiiba ku xiran tahay oo su'aalo badan marka ugu yar tahay qof walba de miiga dad baa u jooga waa lagu soo hadlaya waxba laga weydiinaya maxaa ka caawin kara runtii aad leedahay inaanu isla jaan qaadno de dhalinyartii markii aan Hargeysa ka tagnayna Sacuudiga tagno Hargeysa miisii noqotayba marka magacii sheekh barakallahu fiikum laba su'aalood kulli aniga laba su'aalood oo baan hayaa su'aasha koowaad waxa weeye calaaqada ka dhaxaysa cilmiga iyo qofku inuu wax haysto hanti leeyahay talow calaaqadaas maxay noqonaysaa talabaad su'aasheedu waxa weeye waqti xaadirkan aqoonteena marka aqoonta la joogo cilmiga la joogo iyo marka la joogo xaqii guurka labadaas waxa yara moodaa inay isira carqaladeynayaan carqaladaas iyada iyo talow maxaa lagu xalin karaa adarkaas dad badan oo halku guurku noqon lahaa xal uu noqon lahaa waxbarashada qofka ku saacidi lahaa waxa adarkaasaba isagoo ka reebiyo guurkii marka taana xoran lahaa sheekh bal maxaa lagu xalin karaa labadeeda su'aalood intaas أنا لبس سؤالات شيخ ويديو سؤال شكوى ده حويان وقتي هو واحد شيء ترتدت واحد هاين علمه يعمه لكن هذا حاليا واحد مودين تن ميريو صابتي تدخل اسكوا علمه تبدونوا أن مارتي دي علماء هين علمنا أنكو قاعدين دانا أنكو قاعدين بحويان تدخل حود الشيء ردت كلفته ده قاب كي شيخنا طلعان محا قاب كي لو وجهه كريه سؤال شيء ده كوباد سؤال شلبات شيخ كلمتيسي waxa ku jirtay in dhalinyarada istiyaariyaan oo mas'uuliyad culus oo inta ka sii badan haday noqoto mas'uuliyad ummadda wala isu diyaariyo waxa filayaa daanan khaldaneyn xoog wax nagu soo gaareen in badan in sheekha mas'uuliyada kala duwan loo bandhigay balse uu ka cudur daartay walaalka lafteedana sheekhu ay soo kay waafajiyay talan uu lagu siiyay ninba wixii uu dareemayay inuu sheego runtii waxaan meesha isugu nimi ninba meesha bugtaa isagay balbashaada ninba meel buu yara xoqanaya ninba xagga xoolaha ninba xagga guurka ninka xagga xilka xagga waaqican dacwadda iclaamka ninba waa sax weeye inta deedina kollay waxba ka ogtihiin anna waxbaan isleeyahay de waad ka sheegi kartaa arinta sheekh Cabdiraxmaan Cali xagga madhabka shaaficiga مثلا marka la joogo ama fataawaha ama qadaaga wadanka inta badan waxa culimadu iska raajacaan madhabka shaaficiga iyadoo dabcan de asalka la raacaya naska uu yahay hadana sida u sharxeen kutubtaas mararka qaar kood oo la yara door bido masaladaas inay ka haboon tahay madhabka in laga baxaana way jirtaa oo baahi keentay daraadeed tusaale waxaan u soo qaadan karaa dalaaqa saddexda oo kale furiinka saddexda ee mar kaliya wada dhacday afarta madhabba waxay qabaan ilaa in kala guursatay inaanay soo noqonayn haddana maca culimadii hore taqliidiinta ahayd manhajka akhriya way ka baxaan oo halka ibn Taymiyyah baabkiisa u saaraan marmar baa jirta madhab ibn Taymiyyah la isugu ururo marka quraanka la akhriyo qofka dhintay iyo marka dalaaqa saddexda iyo la eegayo madhabku waa ibn Qayyim iyo ibn Taymiyyah marka baahi keentay daraadeed waanu eegnaa
haddii duruufta qoyskaasi caruur badan ay leeyihiin labadoodii isdoonayaan wixii dhacay ay aada uga murugaysan yihiin markaa waa loo eegaa aqwaashaa kaloo dee iyaba daliille waa loo eegaa way dhici kartaa mararka qaarkood in lagu idhaahdo madhabkaa xaggan daliilka ku xoog badan marna lagu idhaahdo madhabku jumhuurtu khilaafsan yahay oo min xayثu daliil laga xoog badan yahay madhabta way dhacdaa ama almujtahidiina fi lmadhab madhabka dhexdiisa qolyaha mujtahidiinta ku ah sida imaamu nawowi oo kale iyo inay iyaga qudhigoodu sheegaan ay yidhaahdaan madhabtu halkaa daliilka waa laga hayaa markaa wakhtiyadaas oo kale waa la raaci karaa aqwaashaa kale culimada laakiin inta badan si khilaafku u yaraado oo aan dee caamada dhexdooda loogu murmin kaa ummaddu ay u badan tahay ee kutubtana ku qoran ayaa qaraaraadka iyo fataawahaba aan u badannahay arrimaha baadiyaha runtii waa arrin aada u muhiima inaa cashara ku qaadataan marka laega dabeecadda nusuusteenna qur'aan iyo xadiidba wax badan baa tafsiirkooda aada caddayn karaysa haddaad arrimaha baadiyaha wax ka taqaano dabeecadda dhirta xoolaha xayawaanka dhaqanka baadiyaha inaad wax ka taqaano nusuus badan ayaad fasiri karaysaayoo dee dadku qur-aanku ugu horreeyuu ku soo degay dad ina shabahay ahaana carbeed ummadduu nebigu dhex joogay calayhi salaatu wasalaam xoolaa la dhaqan jiray baadiyaa la joogay magaalooyinka lafdigooda asalkoodu sideennan oo kale baadiyu u ahaa markaa kulama oo qofku macrifo iyo aqoon wanaagsan baadiyaha u leeyahay naskana aada buu u sharxi karayaa kelimaad mutaabiqoo waafaqsanna wuu heli karayaa dadkiisana aada bay isu fahmi karayaan waxaan xusuustaa nin baa wuxuu igu yidhi sanad horey ahayd nin odayaasha wadaadada ka mid ah oday yaro halkanoo annaga ah ayaa iska kaa caashaqay buuri adigoo tafsiirka akhriyayuu ku dhagaystayoo habeen walba wuu soo noqdaa buuri isagu markaa waa bari buu ka yimi bari fog buu ka yimi jiidaa ceeri gaabo markaa xaggaad ka timid baan ku wuxuu ihi wadaadkii yaraa innaga ahaa halkan ayaan tafsiirka ka dhagaysanayay markaasaan ku yidhi de innaga maaha waa reer hargeysa sui walla adeer afkeennii buu ku hadlayay markaa caamadii baa isfahmaysaanoo luqadda aad ku hadlaysaa buu ka helayaa wuu kusoo noqnoqonaya u la qabsanayaa waxaa dhacday mar baadiyahaanu tagnay baa nin wadaadada ka mid ahoo dee ducaaddii wax wacdiyayada ayaa geel baanu soo marnay daaqayo oo geeliibu saa u agmarayoo kolkaasaa meeshuna barwaaqay ahayd markaa wuxuu sibir baa uraysa sibir wuxuu ujeedo mataqaanaa habeed baa uraysa oo geelu had iyo jeer markanuu barwaaqaysto xagga dambuu kaadi ku sii daayaa kaadi labadaa cagoode dambe ayuu kaadi ku sii daayaa marka kaadi lama yidhaahdo laakiin waxaa la yidhaahdaa habeedii ayuu sibirta ku sii daayay sibirtuna waa cagaha sii jeedka oo geelu markuu sii jeedo waa adiga arkayo dee waxaan xaggiisa dambe caseeyey waa kaadi marka kaadidiisaasaa habeed la ydhaah meeshanuu ku sii daayay cagihiisana sibir baa la ydhaah sibraha dambe oo galabtii haddaa aragteen geelu wuxuu wada jeedsadaa xagga qoraxda arki maysid casarkii geel ka sii jeeda qoraxda sibirtaasuu ka ilaalinayaa qoraxda oo way gubanaysaa oo baasha kaadi waa icid saa daraaddeed aad buu u gubanaya marka geel wuu cadceedsaday baa lagu odhanaya marka xikmaddan cadceedsiga ka dambaysa inuu xaggaa u jeeso dad badan inay fahmayn baa laga yaabaa sibirtaasuu ka ilaalinaya markaa waanu ku qosqosolna waxaan maxaa sibir ah markaasuu inuu qalad galay sarka wuxuu haddaa maxay ahayd dee tan ka casi waa habeeddii waa kaadida geela habeed la ydhaha waa tii uu nebigu lahaa isku darsada markaad baadiyaha joogto ee aada fasirayso bowlulibil wa labanulibil ha la ysku dara maxaad odhanaysaa caanaha geela iyo habeedda geela waaya markaa taasay aada u fahmi karayaan kaadida waa sax laakiin habeeddaa usii khaasa mid kalena beri buu fasiraya xataa yalija aljamalu fii sami اlkhiyaad xataa yalija aljamal sheero awrku uu galo soo irbadda daloolkeeda mahayn ilaa ay hasha ninkeedu uu gala buui hasha ninkeedu marka hasha ninkeeda odayaashii dhagaysanayay reer burcu ahayoo aad bay u wada qosleenoo maxaa lagu qoslayaa buuri
miyaanu dee hasha ninkeedii ahayn uu kusii adag way dhacday nin tafsiir akhriyaya markaa dee awr dee waa kaa qur-aankuba inoo cadaynaya 8 aswaaj soo maaha 8 nooca qur-aanku uu sheegay waa awrkii hashii iyo maxay dibigii iyo saci laxdii iyo ridii iyo wankii orgicii saasaa loo wadaya markaa 4 meersiyo geel iyo arigii iyo idii iyo riyihii oo lagu dhuftay lab iyo dhadig oo mid waliba magac gaara leeyahay marka haddaad la seegto dadkaad la hadlayso waxay odhanayaan xabadkani waa carab soo dhaadhacay dadkeenna waxay u yaqaanaan qofkan af soomaaliga aqoon uma turaan moogti oo xagga mujaamaladiiyo kuma fiicna markiiba way ku duldhigayaa markaa waxay dhahaan carabna saqan dheh kani waa carabna saqan idinkuna haddii carabtaba ka timaadeen qaladkaana u gashaan hawshu way sii kordhaysaa marka taana waxaan odhan lahaa waqtiyada aad timaadaan rag badan dee magaaladiibu iskaga kacaamay marka waxay iska adkaatayba fursad inaynu u helno baadihii berigii hore iskuullada waktigii gumaysiga iyo kacaankii waxaa la samayn jiray 2-3 biloodoo iskuulladu fasaxa yihiin miyigaa la tegi jiray marka qolada beeraha iyo qolada lo-da iyo halkaasay ka qayb qaadan jireen qolada geela iyo ariguna geelu raacaya qorigaa loo dhiibi jiro ceelku ama waraabin jiray ama shubi jiray ama dawlisi jiray marka qoriguu ridayaa faraskuu fuulayaa inankii secondariga dhiganayay isaga oo geel jira abuu soo noqonaya marka arintaasina dee aad bay muhiim u tahay fasaxyada inaa waqti siisaano waliba waqtiyada barwaaqada ee June iyo May iyo June iyo waqtiyada maaragtay marka adigoo dal baranayo dad badan dalkii iyo dadkii baranaya inaad hadana diintii gaarsiiso oo maaragtay min ciddati wujuh faa'iidadu ay noqoto aad baan ugu talin lahaa su-aashan kale ee ubax leh ama xamse iyaduna waxa ay la xidhiidhay 2 su-aalood oo runtii laga yaabo inay dhalinyaradu aad ugu fikirayaan baahayd qofkii inuu cilmina soo saaro maalna soo saaro si uu labadiiba isugu wadi karaa sidee isu waafaqi karaan runtii waxay isu waafaqi karaan marka hore waa inaynu ogaano qof walba wuxuu ilaahay u qoray buu leeyahay weligaaba haddaad wado oo inan aad guursato Canada ka dhacdo iyo haddaad Maraykan tagto iyo haddaad halkan iska joogto intii ilaahay kuu qoray intaa ilaahay kuu qoray dee lagama yaabo inaad dhaafsay xadiiskii wuxuu qofka arsaaqadiisa waxay u daba cararaysaa sida geeridiisa u daba cararayso marka qofka culimadii markuu taa ku qaracsan yahay wuxuu habbi ku yahay isagoo dacwadiisa wada halkiisana jooga ilaahay tala saartay asbaabtana la imanaya inuu runtii helayo wixii ilaahay u qoray sida badanna qofka aqoon wax kale casrigan in joogno amaanana leh waa ka ishuba haysaba waxa aad u qaaliyay marka amaanadii marka dhalinyarada qofkii cilmi leh ee amaano leh ummadaaba adiya jeer soo doonanayso oo cid wax u dhiibata iyo cid shaqo ku aaminta iyo cid tilaa noo ilaaliyo noo ag fadhiisa lama waayo aqoontii waxa ka qaalisan maanta amaanada marka rasiidka amaanada cidda haysata waxaan isleeyahay iyagaaba ugu qaalisan maanta waxba waayi baayaan laakiin mar walba waxa aan ku talinayaa inuu qofku isku dayo inuu si barayfada ama gaarana u shaqaysto cilmigana dadka baro oo Cabdiraxmaan ibn Awf waa garanaysaa xirfad luha taajira markuu Maka ka tago Madiina tagay ninbuu nabigu ku lamaanay oo saa garanaysaa waa kii iskaga tagay suuqu galay oo markiiba waa kii guursada dhagdhago marka xirfadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee wax soo saarka ina iyadana ku tala gashaan oo ganacsiga waxaan la yiraahdo iyo beeralayda iyo wuxuu ku siyaabaalay waxaan bahdaada ku siin marka inaydaan mushahar qura ku fikirine dacwadana bilaash lagu faafiyo ganacsigana la galo waan ku talin lahaa oo idinkoo koox intii isku deegaana intii isku xaafada in shuraakooyin yaryar samaysataan lacag amaahataan marba mid ku shaqeeyo masaariiftuna halkaa ka soo baxdo mara waalidka ka amaahataan iyo mara baananka ka amaahataan iyo mara shirkadaha ka amaahataanba arsaaqada xorta ah ee furan in isuba kaashataan oo ku sii tababarataan taa cilmigiina bilaash lagu dhigo barakada weyn taasay ku jirtaa waxana aanu ka soo tijaabinay runtii taana saasaan oran lahaa qof dadka had iyo jeer xisaabtamaya amaanana leh waxa laga yaabaa waxay u dhaqaaqaan waliba marka diin ilaahayna faafinaysa ee dacwadana aad ku kabayso baraka gaar ah la socota oo ilaahay cidda diintiisa iyo dadkiisa ka warhaysa isna wuu ka warhaya
ina rabbaka la bilmirsaad wuu ku eegayaa adigu mar haddaad dee isaga u jeedda isna wuu kuu jeedaa markaa dadka waad ka horeynaysaa barakadii baa maaragtay jirta taana waxaan ku talin lahaa in businesska iyo wax idiin gaara oo kaga maarantaan in diinta wax laga qaato iyaduna ay maaragtay isu taagtaan dadku waxay ku wanaagsan yihiin aqoonta iyo arinka iyo awoodda iyo adduunka intaba in lasbilaash lagu siiyo aqoon bilaasha sii tala bilaasha sii awood bilaasha sii xoolana ugu dar weliba in badan baa laynagu xantoolaya wadaadow waxay odhan jireen beryihii hore dee caamadu uma turaan wadaadade waxay yidhaahdeen dee mahmaho badan bay u sameeyeenoo ya wadaadgo mooyaane keen ma yaqaano ya haddaad culimo cadla quutiyo cashar mooye ciidankaa dayo ceeb anaa falay